sidee buu afkan yar u dilaa naf dhan? maxay tahay awoodda xooggan ee ku qarsan? markaad aragtid xabaddu waxay u muuqataa shay baaxadiisu yar tahay, haddana ay tahay mid ka mid ah waxyaalaha loogu cabsi badan yahay koonkan. maxay ka samaysan tahay xabaddu? muuqaal ahaan dusha sare sidan ayay u muuqataa. gudaha hoose waxaa ku jira qaybo muhiim ah kuwaasoo si wadajir ah wada shaqaynaya si ay u qabtaan shaqada loogu talagalay ama looga baahan yahay. kanina waa afka hore ee xabadda, waana inta wax disha ama dhaawacda ee gasha jirka qofka. wuxuu muuqdaa inuu ka miiqan yahay ama ka dhuuban yahay inta kale ee xabadda. dusha sare waxaa ugu dahaaran naxaas, guduhuna wuxuu ka samaysan yahay bir aad u halis badan, kana kooban kiimikis aad u halis badan oo lagu magacaabo liid. waa bir aad u samaysan oo xitaa keligeedu halis tahay. tani waa qaybta dambe ee xabadda ee aan u naqaano fooqa. iyadana waxaa ku dahaaran naxaas, balse gudaheeda waxaa ku jira shay fara badan. waxaana ka mid ah meel yar oo gaasku ku jiro iyo sidoo kale budo isagu jira kiimikaas la isku daray, taasi oo lagu magacaabo baaruud, oo marka gaasku ku shidmo si dhaqsaha u gubanaysa, samaynaysana qarax aad u xooggan, kaasoo gaaraysa birtii liidka ahayd oo aadka u samaysnayd. taasina waxay keenaysaa in xabaddu si xawliya u soo baxdo. marka la yaxo tariigarka ama leebka, waxaa si xigta u bilaabanaya shaqadii biinkan oo lagu magacaabo firing bean. wuxuu si xoog ugu dhacayaa brimerka oo ah halkaasna waxaa ka dhalanaya qarax yar oo samaynaya howl aad u xooggan oo qarxinaya baaruudii, kadibna sii gaaraya afka hore ee xabadda oo ka samaysnaa birtii liidka ahayd. markaasay xabaddu ku soo baxaysaa si xoog badan, gaaraysaana halkii lala tiigsanayay ama la rabay, iyadoo ku socota xawaare u dhexaysa 300 ilaa 420 mitir sakankiiba. weligaa adigu xabad mariday